السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta meel kasta joogtaan. Kiniinkan aan maalin weyd soo dhigay bartayda TikTok. Kadib dhowr qof ay soo weydiiyey waxyaabaha loo isticmaalo iyo waxyaabo u fiican yahay. Marka kiniinkan dia wuxuu u fiican yahay ama la siiyaa hooyada aan uur qaadin ama hooyada aan waxba dhalin ama hooyada ovariga ee wax loo yaqaano egeeda ama ugxanteeda ay yar tahay ama quality-geedu uu yar yahay ama uu jiro wax loo yaqaano hormone disturbance oo hormoonkeedu uu ka khaldan yahay ama uu looga yahay sida wax loo yaqaano AMH ama wax loo yaqaano maaragtay anti-mullerian hormone. Sidoo kale wuxuu aad uga jaanis badan yahay hooyooyinka lagu beero ilmaha ama loo sameeyo IVF-ka. Kiniinkan ayaa uga jaanis badan hooyadu inay uur qaadi karto haddii ay isticmaasho si saxan u isticmaasho. Sidoo kale maaragtay wuxuu aad ugu fiican yahay wax loo yaqaano oo maaragtay uu aad uga roon yahay yani daawooyinka kale oo dhan. Wuxuu si toos ah ula xiriiraa hooyada yani hormoonkeeda ama ovary ama wax loo yaqaan egeeda haato oo egg quality-geedu kor u qaadato ama count-geeda haato ama morphology-geeda haato ama physical wuxuu dhahaato ama wax loo yaqaano hormoonka la dhaho AMH ama egeeda. Marka soo dhawaada kiniinkan the very important hooyadu mar walba ay qaadato hooyada aan uurka qaadin waa mar walba ay u sahlanaato in hormoonkeedu u saxmaan wax loo yaqaano maaragtay uurna ay qaadi karto. Marka hooyo kasta aan ilmo helin ugu ducaynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha fududeeyo. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.